there will be either peace or there will be tragedy for Iran. There will be either peace or there will be tragedy for Iran. There will be either peace waxaa jiri doonta nabad oo ama there will be tragedy. Tragedy waxaa weeye yani musiibo. Okay? Dagaaladoo kaleetood waa musiibo la dhihi karaa Soomaali. So tragedy ayaa ku dhici doonta Iran uu leeyahay marka. Marka Iran uu hanjabo wuxuu leeyahay Iran waa inay nabad qaadataa ama musiibo ayaa kusoo dhacayso ayuu leeyahay. Far greater than we have witnessed over the last 8 days. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaa caafimaad qabtaan. ugu horreyn intaan u gudbin muuqaalkan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo asxaabtii la falgashay muuqaalka hore. xaqiiqatan ma filayn in muuqaalkaas meeshaas uu gaari doono. laakiin alxamdulilah ujeedadan waxay tahay inaan bulshada usoo gudbin wax nacfi leh. sidoo kale dadka aan hadaladooda aan turjumayno macnahooda maahan inaan siyaasad ahaan ama fikir ahaan aan taageersannahay. ujeedkeenu waxa uu yahay in ardayda Soomaaliyeed ay fahmi karaan luqadda weliba markay hadlayaan madaxda caalamka. intaan ku dheeraayn waxaan u gudbaynaa muuqaalkeena. Let's go. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. wuxuu ku bilaabay madaxweynaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo. Okay? intaa dhiilaad I want to thank to waa soo gaabsan kartaa adigoo dhahayo I want to thank PM Netanyahu. Amerikaanka badanaa sidaas ay sameeyaan. So madaxweynaha wuxuu leeyahay marka I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. So Prime Minister ereyga ah waa ra'iisul wasaare. Okay? So haddaa rabtid inaad dhahdid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa leedahay the Prime Minister of Somalia. Okay? BM noo loo soo gaabi karaa. sidoo kaleetood wuxuu yidhi Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu yacni waa iska magaco. Okay? Benjamin Netanyahu naanistiisa waxaa la Bibi. Okay? So wuxuu dhahay waxaa rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kaleetood aan u hambaleeyo ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ama Israa'iil. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. wuxuu halkan leeyahay we worked as a team waxaan u shaqeynay ama u wada shaqeynay like a team. Okay? sida koox oo kaleetood ugu shaqeynay. like wuxuu dhahaa sida perhaps waxaa macquul ah no team has ever worked before. yani saa u shaqeynay team ama koox u wada shaqeysay ma jirto. Okay? yani saa u wada shaqeynay anaga naga hor koox u shaqeysay ma jirto. Okay? yani wuu is amaanaya asiga iyo Israa'iil ay amaanaya. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. We have gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. wuxuu halkan madaxweynaha u leeyahay we have gone a long way yani waxaan horumar ka sameynay ama waxaan ku fasiri kartaa waxaynu ku guuleysan. Okay? sometimes jumladda looma fasiro yani ereyada looma fasiro laakiinse waxaa lagu dabaqaa hadba sida loo dhaha. Okay? so we have gone a long way hadda macnaheedu waxaan ku guuleysanay ama waxaan horumar ka sameynay labadaas waa ku fasiri kartaa. Okay? wuxuu ku sii daraa to erasing this horrible threat to Israel. yani waxaan ku guuleysanay u leeyahay marka inaan tirtirno khatar ay wajahaysay Israa'iil. Okay? so threat hore waxaan kuu soo sheegay inay tahay hanjabaad laakiin hadda meeshan waxaa lagu fasiri karaa yani khatar kaleeto dhananta. sidoo kale horrible shayga markuu aad iyo aad u xun yahay waxaa la horrible yani khatar xun oo ay Israa'iil wajahaysay ayaan tirtirnay ayuu leeyahay. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. I want to thank Israel military for the wonderful job they've done. wuxuu halkan leeyahay waxaa rabaa inaan u mahad celiyo militariga ama ciidanka Israa'iil. sababta ugu mahad celina maxaa weeye wonderful job they have done yani shaqada fiican oo cajiibka ah oo ay qabteen. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots. halkan wuxuu leeyahay and most important wuxuu leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo. Okay? ama si gooni inaan u mahad celiyo labada waa dhigi kartaa. I want to congratulate waxaan rabaa inaan u mahadnaqo the great American patriots. ereyga patriots waa muwaadiniin laakiin jumladda uu ku jiro muwaadin ahaan ma lagu fasirayo sababtoo ah ereyga meesha uu ku jiro ayaa la raacsiyaa. so halkan waxay u taagan tahay marka askaroo kaleetood. Okay? yani ciidanka Mareykanka oo kaleetood ugu mahad celinaya sababtoo ah uu dareemayso waxaa waaye jumladda u dhamayso who flew those magnificent machines tonight. yani askartaas oo duuliyeen. Okay? fly bastigeedu maxaa waaye flew. And all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. And all the United States military on operation the likes of which world has not seen in many, many decades. sidoo kaleetood meeshan wuxuu leeyahay mahad celintii weli wadaa waxaa isu mahad celinaya ciidanka Mareykanka. Okay?
kuwaasoo operationkaas ama howlgalkaas okay operation haddaad maqashid macallin howlgal ayay meesha uga jirtaa howlgalkaas qaadeen howlgalkaas marka noocee waay which the world has not seen in many decades yani howlgalkaas oo aysan dunidu yani aynan arkin 10 sano ereyga decade yani waxaa la lahaa 10 sano isku xiran af ingiriiska waxaa lagu dhahaa decade tusaale ahaan 2010 ilaa 2020 waxay aheeday hal decade sidoo kale haddii rabtid inaad 100 sano ama qarni inaad dhahdid century aa leedahay okay Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. hopefully we will not longer need these services in this capacity wuxuu leeyahay marka weli ciidankii kusii duca waxaa rajeynaya hopefully okay si waxaa rajeynaya kala soo we will not longer need uma baahan doono okay their services yani askarta shaqada ay qabteen tusaale operationkan ay qabteen in this capacity yani howlgalkan ay qabteen oo kale tood uma baahnaan doono I hope that's so. I hope that's so sidaas ayaan rajeynaya yani wuxuu leeyahay weerarka hala aqaadno oo kale tood inuu dhaco man rajeynayn okay I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff. halkan wuxuu leeyahay waxaa rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo ama aan u hambaleeyo chairman ereyga haddaan qasi chairman waa gudoomiye okay ama hadda waxay ugu jirtaa meeshan taliyo kale okay sababtoo ciidan laga hadlaa ciidan gudoomiye maahan taliyo of the Joint Chiefs of Staff okay joint waxa waa ciidamo yani wax isku dhaf ah ciidamo badan oo marka isku dhaf oo ninkan taliyo u yahay marka waxaa leeyahay waxaa rabaa inaan u mahad celiyo leeyahay taliyahan oo lagu magacaabo General Dan Raisin-Kane wuu sii ammaanaya weli wuxuu leeyahay spectacular general yani waa generaal cajiib ah ama generaal heer sare ah And all of the brilliant military minds involved in this attack. and all of the brilliant military minds involved in this attack soo kale wuxuu leeyahay waxaan u mahad celinayaa dhammaan brilliant ereyga brilliant waa yani qofka markuu xirfad fiican leeyahay waxaa la brilliant okay ama tababar sare kale qofka haysto high skilled oo kale qof markuu yahay waxaa la brilliant sidoo kale dad brilliant waxaa lagu siri karaa qofka markuu intelligence ama aqoontiisa ay sareyso okay so wuxuu leeyahay marka waxaa u mahad celinayaa ciidanka maskaxdooda sareyso kuwaasoo involved ku lug lahay ama ka qayb qaatay in this attack weerarkan qayb qaatay With all of that being said, this cannot continue. with all that being said yani intaas waxaa dheer okay intaas waxaa dheer okay af soomaali kale u waay without all that being said hadaad taqaanid qaybta commenti buu soo this cannot continue yani arrintan maahan arrin sii socon karta There will be either peace or there will be tragedy for Iran. there will be either peace or there will be tragedy for Iran there will be either peace waxaa jiri doonta nabad oo ama there will be tragedy waxaa weeye yani musiibo okay dagaaladoo kaleetood waa musiibo la dhihi karaa Soomaaliya so tragedy ayaa ku dhici doonta Iran uu leeyahay marka Iran uu hanjabo wuxuu leeyahay Iran waa inay nabad qaadataa ama musiibo ah kusoo dhacayso ayuu leeyahay Far greater than we have witnessed over the last 8 days. far greater than we have witnessed over the last 8 days waxa uu leeyahay yani musiibadii weli ka hadlaya so musiibadaas oo ka weyn ayuu leeyahay wixii aan goobjoog u ahayn so witness maxaa la dhihi karaa waa goobjoog ama markhaati aad dhihi karta okay yani 8 maalin lasoo dhaafay wixii ku dhacay wax ka darnaan ku dhacay ayuu leeyahay weli wuu sii hanjabaya Remember, there are many targets left. remember there are many targets left weli wuu sii hanjabaya wuxuu leeyahay xasuusnaaw okay remember waa xasuusnaaw yani qofka oo Iran uu hadla Iran wuxuu leeyahay marka xasuusnaaw there are many targets left yani target waxaa la dhahaa tusaale ahaan meel aad ujeedo okay so ujeedada markaa gaarto waxaa la dhihi karaa target ama goolkaaga markaa gaartid waxaa la dhihi karaa target tusaale ahaan Mareykanka wuxuu weeray dhowr xarumood okay so saddexdaas xarun oo weeraray target ayuu ka dhigtay yani meel kale ma uusan weerar meeshaas bis ayuu rabay inuu weerar wuxuu leeyahay marka meelo kale ay jirtaan weerar rabaa uu leeyahay target marka af Soomaaliya dad ku taqaanid qaybta kama diibo soo qora In particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. wuxuu u mahad celinayaa Israa'iil waa uu duceysanayaa inkastoo ducadiisa Ilaahay uusan aqbali doonin marka saaxiibayaal aad ayaa mahadsantihiin intaana kusoo gabagabeynayna muuqaalkeena waxaan rajeynayaa in ugu yaraan muuqaalkan hal eray ama laba eray ka faa'iideen haddii aad meeshaan soo gaartay muuqaalkan aad dhamaysatay fadlan hal like iyo hal comment ka soo dhiibo sidoo kale ku share garay asxaabtaada
si channelkan meel dheer u gaaro anina waxay ii tahay dhiirigelin ugu dambeyntii waxaa idin leeyahay intaan muuqaalka xiga aan ka kulmi doono wabilaahi towfiiq